kadib markii uu ku guuleystay koobka adduunka sanadii 2022 Lionel Messi wuxuu xaqiijiyay inuu dhameystiray kubadda cagta horena wuxuu ugu guuleystay koob kaste oo kale koobka adduunkuna wuxuu ahaa hal xidhaalihii ugu dambeeyay guushiisa laakiin Messi ciyaaryahanka kaliya sidan sameeyayba hubaashi maaha jawaabtuna waa maya muuqaalkeenan waxaan ku eegi doonaa 9 ciyaaryahan kuwaas oo dhameystiray kubadda cagta kuna guuleystay koobka adduunka Champions League iyo Ballon d'Or inagoo eegayna guulahooda xulalka iyo sidoo kale kooxaha iyo sidoo kale guulahooda shakhsiyeed sida u kala horeeyaan sida darteed listigeena kuma jiri doonaan ciyaartoyda sida Toni Kroos amba Emmanuel Neuer inkasta oo ay ku guuleysteen koobka adduunka iyo sidoo kale koob kasta oo ah naadiyada kaasoo ah suuragal laakiin ogsoonow weligood kumaysan guuleysan Ballon d'Or taasina waa mid ka reebaysa listigeenan Messi dabcan aan ku bilowna goodka laftiisa Messi ayaa naftiisa u sharaxay kana dhigay ciyaaryahanka ugu weyn ee abid laagay kubadda cagta sanada xifaaltana oo ay taageerayaashu isku dayayaan inay yareeyaan inta badan guulihiisa waxay ku eedeynayeen inuusan guul ku gaari karin meel ka baxsan Barcelona iyo guriga Catalaanka laakiin gabagabadii xirfadiisa Messi wuxuu awooday inuu cadeeyo dhammaan inay khaldan yihiin si uu dhameystiro kubadda cagta wuxuu ku guuleystay Copa America sanadii 2021 waxa loo xaliyay mas'aale koobka adduunka sanadii 2022 waxa sidoo kale ku guuleystay Ballon d'Or record 8 jeer iyo Champions League 4 jeer yeynani loobin waa mid kamid ah ciyaartoyda farakutiriska ee dhameystiray saddexleyda Yurub 2 jeer intaas oo dhanna waxa dheer Lionel Messi waxa uu ka sareeyay ciyaartoy kaste oo kale isagoo ah ciyaartoyga ugu koobka badan taariikhda kubadda cagta markaan fiirino taariikhda ciyaartoyada ciyaara kubadda cagta cidina weligeed uma aysan dhameyn kubadda cagta sida Lionel Messi oo kale dhanka kale saaxiibkiisa hore Ronaldinho ayaa ahaa mid kamid ah kuwa ugu madadaalada badan ciyaartoyada sportska weligeed lagu arko iyo mid kamid ah kuwa ugu guulaha badan sidoo kale dhabahantii wax badan kuma uusan guuleysan laakiin mastrogan Brazilianku wuxuu hubiyay inuu ku guuleysto ugu yaraan mid kamid ah wax walba lagu guuleysto kubadda cagta marka la joogo wuxuu ku guuleystay Champions League hal mar sanadii 2006 isagoo la qaaday kooxda Barcelona Copa America sanadii 1999 koobka adduunka sanadii 2002 iyo Ballon d'Or sanadii 2005 sida darteed markuu shaqada ka fadhiistay Ronaldinho ma jirin wax gabi ahaan uga maqnaa kubadda cagta laakiin Ronaldinho ma Brazilianka kaliya dhameystiray kubadda cagta maya waxa jira tiraba 2 nin oo kale oo ka soo jeeda dalka Brazil oo sameeyay sidan oo kale haddaba haddii aad taqaano commentiga hoose iigu sheeg waynu eegi doonaa inaad garatiyeen kale hagaag balse hadda aynu eegno haliyey kale oo ku jira listigeenan waana Bobby Charlton wuxuu ka qayb ahaa kooxda England ee ku guuleysatay halka koob adduun ee haystaan ilaa iyo maanta sanadii 1966 dadaalkiisa awgii tartankaas ayaa lagu guddoonsiiyay kubadda dahabka amba Ballon d'Or dabayaqadii sanadkaas kadib sanadii 1968 ayuu Manchester United kula guuleystay koobka Yurub United waa ninka kaliya England ee ay ku faani karaan inuu dhameystiray kubadda cagta dhankaas iyo Talyaanigana ciyaartoy kaliya ayaa sidan sameeyay waana nin lagu magacaabi jiray Paolo Rossi wuxuu ku guuleystay koobka adduunka sanadii 1982 isagoo ahaa ciyaaryahanka kaliya tartankaas ugu fiicnaa kadibna si lama filaana ayuu ugu guuleystay Ballon d'Or isla sanadkaas Paolo Rossi waa mid kamid ah ciyaartoyda aadka u yar ee ku wada guuleystay koobka adduunka kabta dahabka iyo waliba kubadda dahabka isagoo ku guuleystay labadaas abaalmarinba sanadii 1982 iyo isla tartankaas 3 sano kadib Juventus wuxuu la qaaday koobka Yurub si wax ku ool ahna wuxuu dhameystiray kubadda cagta horaantii muuqaalkan waxaan kuugu sheegay daawade inaysan listigeenan ku jiri doonin Toni Kroos iyo Emmanuel Neuer laakiin wali waxa ku jira 2 ciyaartoy oo Jarmal kuwaas oo dhameystiray kubadda cagta Gerd Müller wuxuu ku guuleystay Ballon d'Or sanadii 1970 sidoo kale Yuuradan wuxuu ku guuleystay sanadii 1972 saddex koob oo Yurub ayuu la qaaday kooxda Bayern Munich intii u dhacaysay sanadii 1974 ilaa sanadii 1976 kadib wuxuu koobka adduunka kula guuleystay galbeedka Jarmalka sanadii 1974 sidoo kale Frank Beckenbauer ayaa ku guuleystay Yuurada sanadii 1972 sidoo kale 3 jeer ayuu kula guuleystay Bayern Munich koobka
Yurub intii u dhaxaysay sanadihii 1972 ilaa 1976 wuxuu ku guuleystay koobka adduunka sanadii 1974 kadibna wuxuu ku guuleystay Ballon d'Or-ka 2 jeer sanadahaas oo kala ahaa 1972 iyo 1976. haddii aynu u gudubno Faransiiska waxaa jiray hal nin oo ka mid ah ciyaartooyda dhameeyay kubadda cagta cid kalena ma aha waa Zizou sanadii Zidane wuxuu ku guuleystay koobka adduunka iyo Ballon d'Or-ka sanadii 1998 sidoo kale Eurodana 2000 kadibna wuxuu kula guuleystay UEFA Champions League kooxda Real Madrid sanadii 2002 waliba waxaa loogu yeedhaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu weyn taariikhda kubadda cagta sabab la'aan. haddaba haddii aan ku laabano ciyaartooyda Brazilianka ma xasuusataa Rivaldo sidoo kale kubadda cagta ayuu dhammaystiray wuxuuna ku guuleystay Ballon d'Or-ka sanadii 1999 sidoo kale wuxuu ku guuleystay koobka adduunka sanadii 2002 kadibna wuxuu ku guuleystay Champions League sanadii 2003 isagoo la qaaday kooxda Milano qiyaas xiddi kale oo Braziliana kaasoo dhammaystiray kubadda cagta sidoo kale bilada Champions League-na ka helay kooxda Milan. Kaká wuxuu ku guuleystay koobka adduunka oo uu la qaaday dalka Brazil sanadii 2002 kadibna wuxuu ku guuleystay Champions League sanadii 2007 taasoo uu ku mutaystay Ballon d'Or-ka. Kaká si fudud waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan abid kuwaasoo soo baray kubadda cagta wuxuu ku guuleystay wax walba wuxuu ahaa ciyaartooy xirfad leh oo xitaa la arkay kadib markuu ka fadhiistay shaqada isagoo ka ciyaaraya horyaallo kale. kuma ayaad u malaynaysaa inuu noqon doono ciyaartayga dhammaan dhamaystiri doona kubadda cagta Kylian Mbappe oo hore ugu guuleystay koobka adduunka baahidiisa ugu weyn ay tahay Champions League iyo Ballon d'Or-ka si uu dhammaystiro kubadda cagta. Neymar weli samayn kara haddii uu dalkiisa Brazil kula guuleystay koobka adduunka sanada 2026 isla sanadka gudihiisana mutaysta Ballon d'Or-ka. sidoo kale waad ogtahay inaynan meesha ka saari karin Cristiano Ronaldo haddii uu koobka adduunka kula guuleysto sanada 2026 dalkiisa Portugiiska. sidoo kale Julian Alvarez uma horeba ku guuleystay koobka America koobka adduunka Champions League oo xitaa dhammaystiray saddexleyda Yurub isagoo jira da'da 23 jirka kaliya wuxuu u baahan yahay Ballon d'Or si uu dhammaystiro kubadda cagta. nagula wadaag fikirkaaga ku aadan ciyaartooyadan qaybta hoose commentiga hana naga ilaawin inaad muuqaalkan like saarto lana wadaagta asxaabtaada kuna soo biirta kanaalkeenan Maankaal intaynu ku kulmayno muuqaalkan mid la mid ah sidaas iyo maca salaama fi amaanillah.